haddaba Manchester United waxay ciyaari doontaa galabta 4 galabnimo waxaana ka hor imaan doona macalinkooda la yiraahdo David Moyes waa kii hore ee bari hogaamin jiray waa kayo London Stadium ayaa lagu ciyaaraya inkastoo West Ham ay qatar badan tahay laakiin galabta waxay waayi doontaa ciyaartoyga Michael Antonio oo hal ciyaarood ganax ku maqnaanaya war waa ninkii xooga badnaaba Manchester jagajagay la rabay galabta hadduu maqayaa maxaa yaala ya waliba sidoo kale West Ham Reed ayaa sidoo kale maqnaanaya ciyaarta tan waliba Man United wax dhaawac ma qabaan galabta Edinson Cavani يعني مانشستر dhaawac fresh ma qabaan waa iska rooyin wax dhaawac cusub ma jiro Cavani baana la filayay ayaana la filayaa in uu tababar ku soo laaban doono isbuuciga Tominay xataa inuu ciyaartan ciyaari kara ayaa loo maleynayaa maadaama dhaawac ka soo kacay Man United waxa la saadalinay inuu ku adkaan karaan 2 gool iyo eber waxaana fantastic ku soconaya sanadka Pogba master agadaha Pogba ayaa yiri sanadkan maxaa yeelay ninka lugtiisa waa la sareen sanadkan agadaha buu noqday waa ninka 7 gool ku caawiyay 4 ciyaarood oo Premier League Eva kama dhicin taariikhda Premier League in ciyaaryahan 7 gool uu ku caawiyo 4 ciyaarood ugu horeeyay Premier League oo waxaana suurtagal ah Pogba laba xilli ciyaarood la soo dhaafay wuxuu sameeyay ayaa ka badan 4 ciyaarood oo la soo dhaafay wuxuu ku sameeyay Pogba qordheere ciidamadiisa ayaantan lama haysan karo West Hamna 7 ciyaarood bay guuldare ay adkaadeen 50 ciyaarood oo ay la ciyaareen Red Devil laakiin waxa laga badiyay 30 jeer waliba United ayaa doonaysa in ciyaar isku xiga ay ku soo adkaato Premier League يعني ciyaar isku xiga inay kuwan ku soo garaacaan bay doonayaan banaanka laakiin Red Devil waxay u baahan galabta gool si ay u dhaliyaan goolkoodii boqolaad ee kulankan ka dhalinayaan yani West Ham 99 gool bay ka dhaliyeen United haddii ay maanta mid kale Red Devil ku darto 100 gool bay ka dhalin doonaan kooxdan West Ham mid kale West Ham waa unbeaten 4 ciyaar ugu horeeyay Premier League waana markii ugu horeysay tan iyo 99kii in West Ham ay 4 ciyaar unbeaten tahay wareer Manchester iska jir ilmahaas iska jiraan idin leeyahay mid kale qudhooda United waa unbeaten 28 ciyaar la soo dhaafay Premier League oo ay ku soo ciyaareen kulamada banaanka awayga kulamada la yiraahdo season kala soo dhaafay Red Devil waxay dhameysteen iyagoo aan hal ciyaar looga soo badin banaanka still wali sanadkan way sii wadaan 28 kulan bay marayaan oo ay sameeyaan waa historyga taariikhda kooxda ugu unbeaten ka dheer weeyaan kulamada banaanka waliba 19 gool ayaa laga dhaliyay kulamadaas Red Devil halka 13 ciyaarood ay shabaqooda ilaashteen waana markii labaad taariikhda 10 sano ugu dambeeyay in Man United la arkay inay unbeaten tahay 4 ciyaar ugu horeeyay horyaalka saan khatar Manchester Ferguson reelku qaadi jirtay qaacidadu maxay mataqaanaa maxay la Manchester taas 7 ciyaar ugu horeeya guulo fiican bay gaari jirtay dibca fiican way siin jireen waa sababta 3 horyal u qaadeen laakiin Manchester 7kii ugu yaraan 8 sano ugu dambeeyay wararsaneed wuxuu ku rasmi mataqaanaa maxay la Manchester 7 ciyaar ugu horeeya way ku kufi jirtay laakiin Manchester tan ishaara baa ka muuqanaysa 4 ciyaar ugu horeeya durba horyaalka wali nimanka kan ya waanu gaarin wax guul dar ah 10 sano ugu dambeeyay marka laba jeer bay sameeyeen waxa ka waa sababta Man United uu qaadi way Real waxay tahay maxay yeelay kulmada ugu horeeyay way jiifaan dhamaadka bay kacaan Cristiano Ronaldo ayaana aad u jecel West Ham waxa uu ka dhaliyay 5 gool 4 ciyaarood Premier League uu ka hor yimaaday mid kale Bruno marka ninka kan kooxdaas aad buu jecel yahay Cristiano Ronaldo hadda waa ninka laba dhaliyay maalin dhaweed kadib gool la runtii maanta hadduu ku daro mushkilo kabiir waa ninkaas mushkilo kabiir weeyaan يا ميدا كلا فرنانديز صدن جول أيو دليي سجال يتمن جول وعاويي شن يكتن عيار أو عياري مانشستر بريمير ليغا وانين كلا أو جول مشينا ميدا كلا فرنانديز وأمبيتين لباتين تضبط عيار رسولة في بريمير ليغا أو قصو عيار كل مدى بنانكا وإن كبدن عيار توي كستا تاريخ عياريها نكوح كصبيرو لباتين تدريس عيار وهو بريمير ليغا أمبيتين وهذا وان لقصو مدى بنانكا ووح أي لمن تهي كلي أموحا سمي فرنانديز ciyaarta ugu adag caawa ciyaaraha waxay soo gali doontaa 6 maqnimo iyo barka marka dhigato gambarka Manchester ka qaado oo Chelsea agriga weeyaan ciyaar bay noqon doontaa iyo weyn Tottenham laakiin waxay maalinta u tahay maalin aad ugu xun tahay maxay yeelay dhowr ciyaaryahan baa ka dhaawacan sida Lucas Moura iyo Steven Bergwijn kuwa oo soo gaaray dhaawac ciyaartii Europa League waa Conference League markay khamiistii ciyaarayeen waxaana kooxdu ka maqnaan doona ciyaartoyga Jabha Tanganga oo ka ganaaxan halka Giovanni Lo Celso iyo Cristiano Romero iyo Sanchez iyaguna ay ciyaartan karantiil ku maqnaanayaan wali ay karantiil ku jiraan maadaama ay ka soo laabteen ciyaari America halka Ronaldo iyo Eric Dyer la filayo ciyaartan wali iyo shaki baa ku jira wali runtiyo ciyaartu inay ciyaareen lama xaqiijin Chelsea wax dhaawac ma qabaan laakiin N'Golo Kante ayaaba u soo laabtay ciyaartan oo maanta u ciyaaraya Harry Kane istil ciyaartu waxa la saadaalay Chelsea ku adkaan karto 2 gool iyo gool Kane oo ah wariyaanka ku duulayaan Tottenham istil gool kama dhalin Chelsea hal gool bis buu ka dhaliyay Chelsea abaa lagu leeyahay Kane 8 ciyaarood la soo dhaafay kali hal gool wana Kane ka taqaano misla hal kooxbo oo hal gool ka dhalinaya 8 ciyaarood macnuhu Chelsea ninkan way ku adkaysaa
chelsea ninkan aad bay ugu adkaysaayo marka 8 kulan ugu dambeeyay kuwan uu ka hor yimaada hal gool buu ka dhaliyay marka ninkan uu ku weerarsan yahay blow midda kale chelsea ayaa doonaysa 3 ciyaaro isku xiga inay garaacdo tottenham markii ugu horeysay tan iyo 2005 ku dhawda tottenham awood bay ku bilowdeen sanad ciyaareedkan waxayna doonayaan ciyaartii saddexaad gurigooda bilowga horyaalka inay guuleystaan waxayna sidaas ka dhignaan doontaa inay samayn doonaan markii ugu horeeyay tan iyo sanadii 2002 ogowna Nuno Espirito Santo kooxdan tababar u ah waxaa lagu yaqaanaa ceebta ah in kooxdiisa aynu qaybtood gool dhalin yacni kooxu isagu tababar u yahay qaybtood gool ma dhaliyaan فيري بقول 18 عيارات أو بريمير ليج ونكمل توبرعها 83 كلن أو كمدا كوحدي سقيت كود ويقول درستين إني جول ريان هاري كين أيانا اسكود يحل عيارات كان لبا بقول أو دقيقة يعني أو عياري لبا شوط أو قرعة مركا أديات بي وجه وورس هنيك كروتيو ميدا كلا تشيلسي وكوحدو حتى مانشستر يونايتد وحي عياري دو